Komishanka doorashooyinka qaranka ayaa maanta kala diray in ka badan 1,000 askari oo ka howlgalaya goobaha codbixinta ee magaalada Hargeysa. Gudoomiye ku-xigeenkii komishanka ee qaranka iyo hogaankii howlaha ciidanka bilayska waxay noo faahfaahin doona qaabka aynu kala guureyno hogaanka howlaha iyo gudoomiye ku-xigeenka komishanka. saaka waxaynu isugu nimay halkan inaynu u kala baxno qaybtii koowaad ee goobaha sanaadiiqda magaaladan Hargeysa. waxaynuna halkan u wada joognaa inaan saaka ku dardaaranno ciidanka u baxaya goobaha. xeerka doorashooyinku nidaam buu tilmaamayaa goobaha lagaga howlgelayo oo ay ku howlgelayaan guddiga komishanka qaranka ee maamulka goobta haya iyo guddiga kale ama xubnaha kale ciidanka booliiska ee nabadgelyada ilaalinaya. booliisku ilaalinta nabadgelyada goobuhu leeyahay marka 3 xubnood oo kastoo ciidanka booliiska la geeyo goob amnigu iyagu saaran yahay wixii maamulana waxay uga tilmaan qaadanayaan maamulka komishanka ee goobta jooga. goob waliba gudoomiyay leedahay. wixii nabadgelyo darro kula kacaya inay hor joogsadaan baa booliiska shaqadiisu tahay. ilaa goobtaasu dhammaatana ciidankaasu waa joogayaa 3 nin ee goobta lagu qaybiyey. marka goobta doorashadu dhammaato wakhtiga ugu dambeeya sanduuqay soo qaadayaan oo ka hadhi maayaan ilaa komishanka lagu soo xereeyo. maadaama mas-uuliyaddan doorashooyinku ay tahay mas-uuliyad qaran ama hawl qaran ay tahay waa hawl aynu ka wada shaqaynayno komishan iyo ciidanba. sababta markaas halkaan idinku yimi waxa weeye inaan isla eegno qaabkaynu uga wada shaqayn lahayn. inta aad doorashooyinka ka shaqaynaysaan waxaa idinla tacaamulaysaan waa shacab weeyaan. haddana maalinta doorashada waxaa loo baahan yahay bilaysku inuu sida ayaamaha kale uu shacabku ula dhaqmo si ka duwan uu dadka codbixiyayaasha maalintaa uu ula dhaqmo. waxaynu u baahannahay maalintaa inaynu dulqaadkeeda yeelanno, dadnimadeeda yeelanno, wax walba oo maalintaa hawshaynu inoogu suurtogelayso inaynu samayno. waxaa safka u soo gelaya dad badan oo boqolaala oo nin walba dabeecad kala duwan la imanayo. qaar baa ku aflagaadin doona, qaar baa ku caayi doona, qaar baa waxaanad siisan karin kugu odhan doona. waxaynu rabnaa dadkaas oo dhan inaynu dulqaadkeeda yeelano maalintaa. waayo haddii aad ka falcelisid ama qof ku caayay adiguna aad sharciga marisid taasi waxay keeni doontaa markaa in hawshii naga xumaato. waxaynu rabnaa inaynu isku dhex wadno sharcigii iyo maxaanku dhahdaa iyo shacabnimadii labadaa inaynu isku dhex wadnaynu rabnaa. waxaynu rabnaa in dadkaas sida ugu wanaagsan aynu u kala hori karno maalinta inaynu u kala horno. waxaad nasiib u yeelatay inaad ka howlgashaan caasimaddii qaranka. taas macnaheedu waxa weeyaan mas-uuliyad dheeraada idin saaran. caasimadda populationka ugu badan ama shacabka ugu badan baa ku nool. tirada ugu badan ee codbixiyaashii waa caasimadda. goobaha tegaysaan dadka ugu badan baa safka u soo gelaya. waxaynu u baahannahay inaynu u sii diyaarsanaano sidii dadkaa aynu ugu adeegi lahayn. mas-uuliyadda goobta aad ka shaqaynaysid amni ee kaa saaran sidaad uga soo baxdid baa waxay qayb ka tahay qaranka guud nabadgelyadiisa sidaad uga qayb qaadatay. 2,709 goobood ayaa qaranka oo dhan laga howlgelayaa maalintaa. goob walba waxaa ka howlgelaya 3 askari. 3daa askari siday goobtooda waajibaadkeeda uga soo baxaan ama amniga goobtaa u ilaaliyaan ayay 2,709 goobood guushooduna ay ku xidhan tahay. marka insha Allah waxaan rajaynayaa qof walba goobtiisa inuu sida wanaagsan uga soo baxo. Abbas Ahmed Mohamed, 5TV, Hargeysa.